29 bisha sagaalaad ee 2020 waxaa si toos u daahfurmay wejigii labaad ee ah dayactirka iyo bilic soo celinta wadooyinka halbowlaha ah gudaha degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose taasi ay wadaan guddiga fatahaadaha ee gargaarka degdega degmada Afgooye iyo kuwa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee jaaliyada Canada, America, New Zealand iyo jaaliyada magaalada Lemont Village Barkina ee dalka UK akareebin hay'adda xanaana ee Norway iyo guddiga fatahaadaha ee Norway ee qayb ka ah dhamaan dayactirka wadooyinka degmada Afgooye kuwa soo galay kuwa ka baxaba hadaba iskaashigan oo ay sameeyay ayaa waxa uu suurtageliyay in dib loo soo celiyo wadooyinkii degmada Afgooye bilicda iyo horumarkii ka muuqatay hadaba waxa sidoo kale howshaasi hadii jeer habeenii dheeraar maxoga u xirtay waxgaradka khubarada culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada degmada Afgooye oo had iyo jeer la hareer taagan fikirkooda waqtigooda maalkooda in ay dib ugu soo dhisaan bilicdii qurxoonad ay lahaayeen wadooyinka degmada Afgooye hadaba waxa hadlay horena u sheegay Sheekh Maxamed Yuusuf Boqol Jirow in saddex way wadadan loo sameyn doono taasoo ah in la simo tan labaad ay tahay in la keeno arooyinkii lagu shubi lahaa sida carakaawada iyo wixii lamid ah tan kale in la adkeeyo lana qurxiyo wadada xiliyada roob markii la gaaro isbedel degdeg uusan ku dhicin hadaba sheekhi dib aan u raacno iyo khudbadii koowaad ee ka jeediyeen wajigii koowaad ee dayactirka wadadaasi dib aan u dhageysano khudbadii koowaad ee sheekh uu kaga hadlay habka waxqabadka wadooyinkaasi loo sameyn doono jidkii halbowlaga ahaa oo biyaha fatahaada waxyeeleeyay ay dayactirkii ayaan bilownay level ayaa socda hadda godadkii ayaa la buubuuxinayaa kadibna waxaa la dhigi doonaa arakaawo level ayaa la marsiinayaa waa la rushaynayaa waa la jukaynayaa insha sida aad maqasheenba sheekha waxa uu sheegay in dhowr siya loo mari doono qurxinta wadadaani si dib dambe loogu arkin cilada soo wajaha wadada hadaba qaybtaani dambe waxa ay noqonaysaa wajigii labaad wadooyinka loogu bilaabay carituurka waa ka culumadii oo si wada jir ah u wada joogo billahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da daawadayaal waxaan dhex taaganahay jidkii halbowlaha ahaa oo dayactirka aan ka wadnay oo biyaha wabiga Shabeelle waxyeeleeyay ee degmada Afgooye feeskii lamaad ama wajigii lamaad ayaan adeer aan galnay horay wasaqdii iyo kulli waa laga saaray dhiiqadii haddana waxaa noo bilaabmay caratuurkii hawsha waad aragtaan waa isada waridan tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo waxaa kaloon ilaah u weydiinaynaa intii wax la baxday oo sadaqa jaari in ilaahay ugu dhigo oo shilinkii ay gashatay waalidiintood haddii ay dhinteen allah ugu naxariisto hadday nool yihiinna khaatimadooda allah waafujiyo bal insha allah hadda feeskii labaad ama wejigii labaad ayaa noo bilaabmay hawshana waa socotaa alxamdulilah si wanaagsan ayay nooga socotaa wax hor istaaga ma jiro ilaahana garab galo insha allah dhammaadkana waad arki doontaan haddii la idmo kolle hawsha feeskii labaad ayaa noo bilaabmay kolle haddana odayaashii ayaa la jooga guddoomiyaha afhayaanka ganacsatada Ali Axmed iyo injineerkii hawsha waday Muxidiin Waraawa iyo acdaadii kale ee guddiga fatahaada wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye insha allah haddana waxaan idinku wareejinayaa علي أفيانك جناح ستدا بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد إلى ما هذا إسكال وجوشان ما أنت نجارسية ومد الصومالية ضل يدبت ملك استوجبته وحنوها بلينا دقمة أفجو جوشا ما أنت أي جارتي يهر مركا wadooyinkii burburay oo fatahaada webiyada ay burburiyeen oo dib u dhis maanta lagu sameeynayo oo cid kasta oo Soomaaliya dal iyo dibad ha joogtay maanta ay ka qayb qaadanaysa waa ilaahay mahadiis waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa cidii wax la baxdayna ilaahay ajr iyo xasanaad Allah ka siiyo wax qabadka degmada cid kasta oo maanta Soomaali ah oo gacan naga siisa oo muslimiin ah oo gacan naga siisa waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo maanta waa fursad qaali ah fursadaas qaaliga cid kasta oo Soomaali ah waxaan ka codsanaynaa inay maanta ka faa'iideysato maadaama wadooyinkii degmada Afgooye
ilaa dawladdii burburkii maanta inta ka dhexaysa aan wax laga qabanin maantana waxqabadkeedii dadkii shacabka ay dal iyo dibid meel kastoo joogaan ay u jeesteen dalkooda inay dib u dhistaan marka waxaan ka codsanaynaa dal iyo dibid in gacan nagala siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah haddana injineerka ayaan ku wareejinayaa isagana warbixin gaaban buu idiin siin doonaa insha allah sida aad bilowgeedaba aad lidiin soo gudbiyey dhammaadkana waan idiin soo gudbin doonaa insha allah waxaa kalooad arki doontaan haddii hawsha ay noo dhammaatana wixii aad la soo baxdeen xisaab celinteedana waad arki doonteen insha allah bal tafadal injineer بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أنت دلك جوكتي أنت دبد الجوكتبة عد الله عد محسنات وحلا بحضي إلهي ورتا أجري حسنات الله كسي كو جهد ودي حقوق وكو بحيانا يقنا غير الله وبدلو هورينا وحي عن قوانين وايدين شاقني ور تريدي سنة وحبا تاري ميسو وهو قباشو وركوا يال إيوايهي hawshii aad u idmateen culummadii aqoon-yahanadii deegaankii wixii oo dhan gacanta laydinkugu hayaa sida sheekayna oo idiin sheegayna aakhir wixii u dambeeya ama haddii xisaab ahaan lahayd ama sayma finaalka waddadaan hadda aad arkaysaan ciidda ay ku socoto waa qaybta darajadii koowaad waaye darajadii labaad ayaa u dhiman waana saaraynaa iyadana barnaamijkay noogu jirtaa bacdamaa laga baxay alwaaxdii iyo wixii oo lagu soo gudbay alxamdulilah ilaahay dad waa ku soo badbaadiyey tusaalihii laga qaatay ilaa waxaa waaye wax kastoo cilmiga iyaga isu kaa dhiibaayo alwaaxdii waxaa nooga soo baxday inaan waddada kor u qaadno cabirkaasaannu ku soconnaa midda hadda aan soconnan insha allah waa darajadii koowaad darajadii labaad waan ku xijinaynaa insha allah wixii yacni ugu dambayntii ay ahaan laheed ama hadday xisaab ahaan laheed ama hadday shaqa ahaan laheed siduu sheekha idiin sheegay dib baa laydinkugu soo celinaya idinkana ajri xasanaad allah idinka siiyo sida aad waddanka ugu gurmanayseen annagoo waddanka maqansaa ugu gurmanayseen annagoo gudaha joognaa ugu gurman waynaa haddee nin walba dalkiisa allaha dhiso marka allaha tuso inuu dhisto meeshaan isxilqaan wax la yidhaahdaa bilowday aan hadda wadaysanay dowladda isxilqaamkaan ku soconnaa waa mahadsantiin jasaaka allah kum bikheer haddana waxaan ku wareejinaa sheekh maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي ورقها كلي هرتيد أيال دميي أفهيانكي يوشيقي إجريركي هدي هدلين ور waxaan filayaa halkaas inuu ku soo idlaaday aniga waxaan ku dari lahaa kulay meesha aan taaganahay waa magaalada waxaan dhihi karaa meesha ugu muhiimsan waaye sababtoo ah wadadan waa wadada isku xirto afgoy labada qaybood bari iyo galbeed maalmihii biyaha ay halkan fadhiyeen waa la dareemi karaa culayskii iyo dhibaatooyinkii lagala kulmay iyadoo ay dhacaysa hataa dadka qaarkood in habeenkii ay maxaa la yidhahdaa dad umul ay wax u noqdaan oo la soo mari waayey iyadoo la ogyahay buundadii weynaydna in ciidamo ay joogaan habeenkii aan la dhaafi karin marka waxaa qasab noqotay wixii laga qaban kara in laga qabto insha allahu tacaala hawshiina waa bilaabatay kanna waa wejigii hadda labaad wejigii koowaad wuxuu ahaa ciiddaas hadda meesha taalo oo fulaqii iyo in laga qaaday haddana carakaabadii ayaa la dhigay qaybta hadda aan joogna dhafteedana waxaa noo muuqata carakaaba inaan lagu deeqin laakiin oo la rabo in sida hadda injineerada ay sheegeen laga hormariyo caradii oo maxay ahayd caragaduudka ah tii deexeed ah in lagu shubo kadib carakaaba la saaro marka insha allahu tacaala hawsha way socotaa waana dadaalaynaa inta dhiman ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo saqiro dhammaanteennaba intii wax baxsatay iyo intii maskax ku dartay iyo intii duca ku soo dartayba marka waxaan jeclaan lahaa kelmaddiina inaan halkaas aan ku soo koobo baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته